بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، وحي وعدي أها موانا أها علمدي جوهري يا شيختين وعن رامركا سدع ريموت إن برارجي يا ليرة أرنت كوبات وحي تاي وحلقة يابا إن دتك باقا صو ساري ama dastuurka iyo qaanuunkan soo qoray oo kuna andacooday inay difaacayaan gabdhaha Soomaaliyeed oo la kufsanayo markay maqlaan culimadii arrintan ka qayliday inay dadka u sharaxaan arrin qalad ah oo ay dhahaan annaguna kufsigii ayaan ka soo horjeednaa, culimadiina kufsigii dadkii ka soo horjeeday baa ka soo saarayaan dhahaan. culimadu kufsi باقا adinku aad ka soo jeedeen baaq ka culus ayay ka soo jeedinayaan, waana wixii Ilaahay ka soo jeediyay subhanahu wa ta'ala. kufsiga adinku waxaad ku xadideen xukunnada laga xukumayo ama ciqaabta laga ratibayo dhowr sano, 10 sano, 15 sano, 20 sano oo xarig ah iyo wax la mid ah, 25 sano iyo waxyaabo unsaas ah. ayaguna waxay sheegayaan baaqi Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo xukunka Ilaahay uu ka ratibay kufsiga oo ah waxaas wax ka culus oo mararka qaar gaari kara qofka in lagu dilo meel fagaara inta la keeno dhagax la dhaco ilaa nafta laga saaro oo naftu uga baxdo dhagaxaas la dhacay. horta taas dadka muslimiinta waxaan leeyahay yaan lagu indhasar caadinin hadii la damco in lagu indhasar caadiyo. taas waa mid kale oo xigta dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiin ah, boqolkiiba boqolna muslimiin ah. waxaana xaqiiqo ah markay waxaan oo kala maqlaan iyo wixii laga akhriyay dastuurka hadeertan la rabo in la soo saaro ama la ansixiyo jirkooda caadoodu inay istaagayso lana yaabayaan waxa laga yaabaa marka dadku inay ku fakaraan waxaan xagee laga keenay. waxaan aaminsanahay waxaan meesha laga keenay inay tahay dhulka gaalada iyo dhulka reer galbeedka. dadka soo qorana in badan oo kamiduhu inay yihiin dad la soo dhaqmay reer galbeedka. qofkuna markii qofka wax badan la dhaqanto xoogaa waa ku jinsi noqotaa, man jaalasa jaanasay dhahaan carabtu. qofka haday qofka wax badan la joogto qofka eedeedii iyo xumaanteedii u muuqa ay mayso. dad badan oo wadamada reer galbeedka ka yimid oo xeerka noocaana oo laftirkiisa oo waxba laga bedelin oo reer galbeedku ay ku dhaqmaan lagu dhaqi jiray oo maxkamadaha tagi jiray oo naaguhu ay ku dacweey jireen, naagahoodu ay ku dacweey jireen maxkamadaha reer galbeedka ee xukunnada noocaana lagu qaadi jiraa. waxa laga yaabaa inay keeneen rag badan oo laga yaabo inay hadeertaan korkooda uusa ka jirircoohayna waxa laga yaabaa wax ugu jirroole ay yahay inay tahay la qabsi la qabsadeen xeerarka noocaan oo kala. horta Soomaaliya iyo muslimiin ay marka koobaad taa la socda. midda saddexaad waan ku gabagabeynaa oo aan rabo inaan baraarujiyo waxay tahay xeerarkan waxyaabaha ku jira waxa kamid ah qof walba oo soo dacwoodo soo qayla dhaamiyo kufsi iyo wax la mid ah ka soo qayla dhaamiyo daryeel gooniya in la siinayo. kufsigana waxa kamid ah xeerkan islaantii mukhalifo noqoto oo ninkeeda ku mukhalifowda ee ninka ka soo carartay tiraahdo ninkeygii caawa waa i kufsaday waa i xoogay in ayada laftirkeedu uu noqonaa islaantaas ay noqonaa islaan la kufsaday daryeel gooniya in la siinaya ku taal xeerka. daryeelkaas waxa kamid ah caafimaad, waxa kamid ah dhaqaalo dawladda waliba ay siinayso dawladda looga qaadayo, waxa kamid ah in meelaha qaar loo musaafirinayo meelaha qaar la geynayo. dadkii Soomaaliyeed marka aan warsanno waxaad ogtihiin qoysaskay waxyaabaha la midka dhaqamadooda waa dareemi kartiin. islaantii masayrta oo ninkeeda ku masayrta iyo islaantii mukhalifada ahayd iyo islaantii ninka inay iska fasaqdo ama iska furta rabta ee dhayaca la goobaysa. hadii la yiri mar allaala markaad soo cabato soo qayla dhaamido ninkaada ka soo qayla dhaamido daryeel gooniyaha lagu siinaa markii la yiri waa lagu asturaa waa lagu qarina dhaqaala lagu siinaa markii la yiraahdo maxaa isleedin reerahanagii iyo sidii wax u dhaqmaa jireen ma u dhaqnaayeen isleedin ma malaynayo sidii wax noogu dhaqnaa jireen wax noogu dhaqnaanaya. waxaan marka wax bale laga soo minguuriyay isku soo duub ala kullin wixii xumaanahay waxaan ku jiray in badan oo kamid ah waa laga waramay. dastuurkan waxaan la midka ama hindisay sharciyeedka waxaan lagu sheegana aniga min awali ila aakhiri waa lagu dul akhriyay in badan oo kamid ah si xaqiiqa loo ma fahmi karo maadaama wuxuu ay yihiin wax luqadii asalka lagu qoray laga turjumay oo luqad kale lagu turjumay. laakiin intii aan ka fahmay in badan oo kamid ah foolxuma ka buuxday. foolxumada hadda la soo khulaaseeyna inta aan la sheegin oo kale ka badan oo meeshaas ku jirta. dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta ah waxaan ugu baaqaynaa marka sida culimaduba ugu baaqeen
sidii looga hortegi karo iyo wax walba iyo qof walba jaaheeda iyo caqligeeda iyo codkeeda uga hortegi karta waxa noocan oo kala inay uga hortagto wallahu اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين kuguma qasbaayo inaad faafiso balse Allah dartii ku faafi